بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه: واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ما أنت أسبتي تاريخ ذو أي تهاي لحي لواتنك الربيع الأول كن أفر بقول أفرتنيكو هجرية تاريخ ذا هجرية isla markaana ay ku beegan tahay 23 bisha November 2019 wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay soo saartay war-saxaafadeedkan. wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ayaa mas'uul uga ah dalka arrimaha diinta sida uu qabo dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qodobka 3 farqadiisa koowaad. wasaaraddu waxay cadeynaysaa inay dhexdhexaad u tahay dhammaan aragtiyada kala duwan ee culimada Soomaaliyeed waxayna kulmisaa culimada Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan. wasaaraddu waxay u mahadcelinaysaa dadaalada Sheekh Maxamed Cabdi Umal iyo culimadii la socotay ay ka geysteen gargaarka shacabkii Soomaaliyeed ee ku waxyeeloobay fatahaadihii ka dhacay gobolada dalka qaar ka mid ah. wasaaraddu waxay sheekha ugu mahadcelinaysaa khudbadii uu ka jeediyay masaajidka isbahaysiga oo si wanaagsan u dhacday kadib markii ay qayb ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ee ka codsatay Sheekh Maxamed Cabdi Umal in uu qabto muxaadaro guud ayuu sheekh aqbalay arinta oo ay soo dhaweeyeen hay'adaha xukuumadda oo ay wasaaradda hormuud ka tahay. waxa ayaan darro ah in tashwiish lagu furay qabashada muxaadarada sheekha oo ciwaankeedu uu ahaa asbaabaha keena musiibooyinka iyo sida looga hortago. wuxuu sheekhu soo jeediyay isagoo tixgelinaya duruufaha ku xeeran muxaadarada in la baajiyo. wasaaraddu way ku waafaqday soo jeedintaas. sheekha wuxuu qaban doonaa inta uu dalka joogo barnaamijyo wacyigelineed oo ka bixi doona warbaahinta kala duwan ee dalka. wasaaraddu waxay diyaar u tahay in Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo ay ku martiqaadi doonto barnaamijyo wacyigelineed xilliga ku habboon isla markaana ay diyaar u tahay soo dhaweynta dhammaan culimada Soomaaliyeed ee diyaar ku ah wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed ee xilligan baahi weyn loo qabo. waa mahadsantiin.